ganacsi oo lagu qabtay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, wasiirka hoggaanka shaqada iyo arrimaha bulshada, mareeyaha xafiiska samafalka madaxtooyada, maamulka sare ee jamciyadda samafalka ee Rahma, culimo awdiin iyo waliba haween aad u tiro badan oo munaasabadaasi lagu soo casuumay. Jamciyadda samafalka ee Rahma oo jamciyad samafala oo wadaniga oo ka shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka, waxbarashada, deegaanka, agoomaha, caawinta dadka danyarta iyo waxyaabaha kale la halmaala. Sheekh Cabdalla oo gudoomiyaha jamciyadda al-khayriga al-Rahma oo munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay ayaa ka waramay taariikhdii la aasaasay jamciyadda iyo waliba ujeedooyinka loo aasaasay iyo waxyaabaha kala duwan ee dadka ay u qabato. jamciyaddu waa jamciyad khayriya, waa jamciyad ka aasaasantay magaalada Hargeysa, xaafadda waliba xawada ka aasaasantay. markay ku aasaasantay un baan yar iftiiminaya. waxay ku aasaasantay jamciyaddu waxay aragtay dhacdo ka dhacday xaafadaha Hargeysa, xaafad kamid ah. waxay dhacday hooyo iyo aabbo darxumo wada dhintay oo gurigooda labaduba ay ku go'een, carruurtooduna qarisay. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle iyo Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Jaamac oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa dadkii ka qayb galay munaasabadaasi ku gubaabiyay in ay si gaar ah ula shaqeeyaan jamciyadaasi oo dadka danyarta u adeegta. gudoomiyaha ururka wadaniga ee Sogsa Khadra Khalil oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ayaa tilmaantay muhiimadda uu ururkani kaga jiro adeegyada bulshada. mareeyaha guud ee xafiiska samafalka madaxtooyada ee Soomaaliland, Aamine Maxamuud Diiriyo oo iyaduna munaasabadaasi ka hadashay ayaa tilmaantay kaalinta uu xafiiska samafalka madaxtooyadu kaga jiro u gargaaridda dadka danyarta iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa jamciyadaasi. jamciyadan ar-Rahma xafiiska samafalka way wada shaqeeyaan, waxay qabtaan, waxay halkan ku soo bandhigeen oo kaliya maaha, waxyaabo fara badan bay qabtaan. Sheekh Cabdalla sidaa uu sheegay kaariyoon uu ka bilaabay, maantana heerkay marayso waad arkaysaan, iyo culimo awdiinka kale ee hareeraha fadhiya la shaqaynaya. runtii dumarku maanta sidaa ay aad uga soo qayb gasheen, waxaan jecel lahay in fundraising-kana insha Allah biidnillaahi karim sidaa u bilowdeen. hablaha imika bilaabayna ilaahay meesha ka soo saareen wax khayr qabaha ugu bedelo. wasiirka hoggaanka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Shukri Xariir oo munaasabadaasi soo gabagabaysay ayaa iyaduna u soo jeedisay guud ahaanba ummadda muslimiinta ah in dadka danyarta loo naxariisto. waxaanay tilmaantay kaalinta xukuumadda ay ka tirsan tahay ay ugu jirto adeegidda dadka danyarta iyo sidii wax loogu qaban lahaa. ilaahay waxaan idinka baryaynaa inay noqotaan kuwii qalbigiina naxariistu degto ee u naxariista walaalahooda baahan ee loo samafalayo, ee loo dhawaaqayo, ee la doonayo in wax loogu tabaruco, inay noqotaan kuwa ugu dhagaha nugul. qofka waxa badan haya waxaynu ka codsanaynaa waxa badan ilaahay u dhiibay inuu isaguna wax ka dhiibo, ka waxa yar haya waxa yar ilaahay siiyay inuu wax ka dhiibo, ka aan waxba haysan inuu xooggiisa hadduu caafimaad qabo ku tabaruco inuu wax ururiyo ayaynu ka baryaynaa. culimadii munaasabadaasi ka qayb gashay ayaa gabagabadii xafladaasi u duceeyay cid kastoo taakulo ku darsatay jamciyadaasi oo u adeegta dadka danyarta.